بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يمروين أقاسمها جودة وزارة الفافنتا مدن عبد الرزاق بهلاوي حلبان كمقالدنا صحفيين تا يوكيل لذا بعض وربعين تقارن كصومالية ذا يوروب صحفيين تكلا متعاهنا لا يقولنا نشرفي قابت عسومات نجا قبلي فنانين تا غيبها كلا دوان بالشدة رنتي مدن كأه دمانتين بسود هذا طبعا وقتي أو عن كتلة قلنا أو دير هذا درتد وذكرى لي قلنا هنا مركو قرصة مركا حاجة برنامج كوحانودا دين دونتا ولاشن فاضمو فانده ونوغتي مد يوكي waxaan jeclaan lahaa waqtiga waa koobi doonaa hadduu ilaahay ka dhigo barnaamijku wuxuu isugu jiraa soo dhaweynta agaasimaha iyo dabaaldega sanad guurada telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV oo maanta ay u noqonayso sanadkii 32 markii la aasaasay iyo dib u howlgelinta sanadka afraad SNTV marka soo dhawaada dhamaantiin intaana faadimo faandhow guda gelin waxaan jeclaan lahaa in aayadaha quraanka kariimka iyo qowlka Ilaahay inaan ku furano waxa aayadaha quraanka kariimka ay noo akhrinaya isla bahda SNTV mid kamida kaamirmanada waa maxamed yare aayadaha quraanka kariimka noo akhrinaya maxamed yare soo dhawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. دمانتين كسو دواذا حفلة قروح ذا بدن أي نصو دياريين ولا لها يجا سويدن وشوجا ورباهين تقرنك أي أمهاتينهين سيدان هراي ليدين كوكو شيء مرتي أيانا لتشوك oo kamid yahay Bahlawi mudane Bahlawi marka hore soo dhawow anigoo magaca reer Britain ku hadlaya waa ku soo dhaweyneynaa dhamaanteen sida la socotaana waxa la soo gaaray sanad guuradii telefishinka qaranka oo maantay mas'abarito ku beegan hadii ay bakaraale noqdo laakiin hadii aan marna joogno goobtan waxaan codsanayaa in uu noo imaado mikrofoonka aan u gudbiyo mudane Cabdicasiis Geedi oo isagu markaas halkan ka ah ururka waalidiinta iyo macallimiinta si uu wax yar oo warbixina iyo warbaahinta qaranka ugu soo dhawaado markaasna noogu soo gudbiyo dhankan Sweden xaaladooda وما أتصنتها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدي هذا وفرح سنة هي مانتا إن وربعينتي قرنكا وأنا سلاي هاي هدو لهي هذا مانتا ماشي يجوك تمدوين كدي وحرجين إن عالم كملا وصل وربعينتي كجاري دون إن شاء الله صابتا تاسو لا وحي تاي markaan fiiriyo wajiyada maanta meesha fadhiya ee warbaahinta qaranka u shaqeynaayo waxaad moodaa in la yiri waa kuwa hadda orodka ku fiican sababtu maxay tahay odayaasha anigoo kale inta mar hadii la yiraahdo hawla la idin dhiibay wax laga yaabaa inay dhax uga soo tagaan laakiin dhalinyaro mustaqbalkoodii maanta uu bilow yahay in warbaahinta lagu barbaariyo oo lagana ilaaliyay dadka geedka caleemihiisa kala qaybiya taas waxaan uga jeedaa geedka caleemihiisa kala qaybiya waxaan leeyahay mar haddii xasan iyo xuseen loo kala saaro micno ay sameynayso badan warbaahintu ma jirto laakiin dhalinyaro maskaxdoodu ay ay macnaha ku abuuran tahay oo kaliya qarannimo oo waxa uu sheegayo ogsoon yahay berrito inay horumar u yihiin bulshadiisii iyo dadkiisii inuu soo fariiso TV-ga runtii aad iyo aad ayaan ii farxad gelinaysaa agaasimahana waxaan leeyahay soo dhawow markuu ugu horeyso annaga Sweden ahaan waa ka duwanahay wadamada caalamka loo soo qaxay laba shay waa uga duwanahay dadka aan u nimiday bini'aadnimadu way uga fiican yihiin dadka kale laakiin waxa laga yaabaa annaga ahaan inay xogaa dhib noo keentay oo aan baasif noqono sababtoo mar haddii lagu dhaqaalinayo oo dusha lagu salaaxayo waxa laga yaabaa xogaa caqligaaga koritaankiisu xataa mararka qaar inuu ciriiri galo wax walba aad macnaha aad u baahatay haddii lagu soo qabto meeshii lagu dhiiraa qabso marka laakiin baryahan dambe waxaad moodaa
in wejigeenu kii hore uu ka duwan yahay annaga ahaan dadka Soomaalida ah ee maanta 60,000 iyo something lagu sheego oo wadanka ku nool bariyii hore sidii ahaan jireen maanta sidii yihiin farqi weyn u dhaxay xaqiiqiyan markii laga hadlo laanu maxay tahay waqtigii hore dad waxa soo galay meeshan ilaahu mar ibix ku soo baxay mar uu ibixiyo meel nabad igi mar hadduu seexdayna wixii banaanka ka dhacay shaqadiisa ma laakiin noloshii intaasa xisaabtan ay yimid marka ilmihi aad dhashay markuu soo qaan gaaro ku weydiiyo su'aashiina aad jawaab u waayay waxaad ku qasbantahay inaad raadiso meesha jawaabta uga helahay taas waxay keentay marka dadka inay baraarugaan in maanta alxamdulillah xafiisyada dawladda ama aan iraahdo hay'adaha dawladda ee wadankan ka jira marka dhex martid wajiyo badan oo Soomaaliya ka soo muuqdaan dad aqoon-yahana dad mutacalimiina dad macnaha shaqaysanaya dad mas'uuliyiina aniga ahaan xaafadda hadda aan ka imiday oo aan isleeyahay odayaashooda ka mid tahay runtii waxaan ku faanaa inaan xaafadaha wadanka Sweden ama degmooyinka wadanka Sweden degmada ugu fiican dhinaca Soomaaliya markay noqoto taas waxaan u leeyahay laba arrimood isku xirnaanta iyo midnimada waxaan ka gaarnay meel maanta aan ku faani karno maanta mas'uulkeena ugu sareeya xaafadda aan deganahay waa nin Soomaali ma jiro meel macnaha Sweden ay ka jirto gabdhaheena raggeena dumarkeena aan iraahdo runtii way ka dhex muuqdaan bulshada Soomaali ahaan markay noqoto laakiin waxaan u baahanahay waqtiyada soo socda biidnillaahi kariim warfaafinta ama dhinacan warbaahinta waa meesha la iska galay inta badan laano waxa laga yaabaa jiilkan soo koraya inaysan ahayn dadka Xasan iyo Xuseen markuu sheekaynayo waxay sheegaan dhageyste ay yihiin dad wax akhriya la socda waxa caalamka laga sheegayo marka qaar ay su'aal ku weydiiyaan oo ku yiraahdaan abba waxaas markaad sheegaysa xagee ka soo xigatay way nagu cusubtahay annaga ahaan dadka daadeena way nagu cusubtahay qofkii calaamad su'aal galiyo waxaad sheegayso waa tiraado waxaas jirin uu ku yiraahdo abba xagee ka soo xigatay inaan ka jawaabno ku qasbana joornaalka ku qornay idaacada laga sheegay idaacadeena marka haday ka horeysay idaacadaha kale way waxa soo gudbinaysaa ay yihiin macnaha wanaag ay yihiin xisaabtan uu jiro wasaaradda hadda waxa ka dambeeya sharciga waa inuu shaqeeyo waa muhiim qof walba wuxuu doon hadduu iska qoro TV gaday ama shaashada gadaasheeda inta fariisto wuxuu rabo iska qoro way birta dhibaato keenta dhibaan ugu sugan marka sharcigana dhinacaas in laga adkeeyo insha Allah qofkii qaranka wax u dhimaayo aan marnaba la afin lagu sii dayn bulshada taasna waa codsan insha Allah dhalinyarada meelaha fikir kala timid ee dhalinyarada daada yar iyadana waxaan leeyahay caleemaha la kala qaybiyahay geedkii ku wada yaalaan ogaada Soomaaliya ahaanaysa waa ku dhimanaysaa idinkoo Soomaaliya laakiin wax macna ay sameynaysaa ma jirto in caleenta gaarka ah ay macna ku yeelato aad ma assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa tahay haatanna waxaan u wacayaa oo mikrofoonka ku soo dhaweynayaa Marwa Zahra Barqalle oo iyadu markaas ururka haweenka ee wadankan ka jira Marwa ku soo dhawow mar kale mikrofoonka waa mahadsantahay waxaa idinku salaamta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa soo dhaweynaynaa TV-ga qaranka oo 32 sano jirsaday TV-ga qaranka markaan leenahay wax uu qaran leeyahay oo dadkoo dhan ka wada dhaxeeyo waxaad u moodaa inuu si gooni ah uu ku taabanayo sababtoo anaale wiilkayga leh qof walba oo Soomaali ah leh marka taas waxay ku tusaysaa in qaran Soomaaliyeed uu jiro dawlad Soomaaliyeed inay jirto TV-ga qaranka inuu jiro waa run ahaantii farxad gooni ay noo tahay mar walba wax qaran la leeyahay qaran waxa uu moodaa wax walba inay si baaba'ayaan laakiin TV-gu wuu nool yahay wuu shaqeynayaa waa meesha aan idaacadaha ka fiirsano waa meesha aan Soomaaliga ka wada ogaano waa meesha dadkeena waaweyn oo waalidiinta wadanka yimid ay wax ka fiirsadaan waa luqad af Soomaali ku hadlaysa waa wax aan wada leenahay runtii waxay noo tahay wanaag iyo sharaf inuu jiro iyo inuu sii jiri doono hadduu Ilaahay idmo waxaan soo dhaweynaa agaasimaha TV-ga qaranka waxaan ku leeyahay soo dhawow mar labaad iyo warfaafinta waxaan leeyahay soo dhawow waxa timid wadankaagi annaga waa wadankeeni maadaama wadankeeni uu yahay Sweden adigana waa wadankaagi annaga kugu soo dhaweynayno waxaan ku leeyahay soo dhawow dadkaagi aad u timid ummadaadi aad u timid
waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa Xudeyfi oo TV-ga National TV halkan uga shaqeeya mas'uulna ka ah oo wax walba aan sameeynayna na garab taagan nala shaqeeya waliba asagoo magaalo fog degan marka halkaas aan uga haray waxaan leeyahay nasiib badan TV-ga qaranka insha Allah aad iyo aad ayay u mahadsan tahay mar kaleetana waxaan u wici doonaa haddii eeba ka raali noqdo cilmi dagal oo isagu ah ganacsade Soomaaliyeed ahna milkiilaha xaruntan quruxda badan ee maanta sida quruxda badanna loogu soo dhaweeyay annagoo mar kale u mahadcelinayna ayaan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa mudane ku soo dhawow aad iyo aad baad mahadsan tahay dhamaantiin waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta asagana waan salaamayaa waxaan leeyahay soo dhawow anoo ku hadlahaya inta naga maqan iyo intaan fursad u heli doonin inay hadlaan waxaan ku leenahay ku soo dhawow Sweden qalbi furan baan kugu soo dhaweynaynaa arintu laba arrimood baa is saaran waxa weeye TV-ga qaranka oo 32 sano jirsaday iyo agaasimaheennii guud ee wasaaradda warfaafinta oo martino ah soo dhaweyntiis labadaas arrimood ayay kulanku iyo ku saabsan intaas aadin waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha TV-ga qaranka iyo wariyaasha kaleeto oo maxay ahayd halkan jooga Universal iyo wariyaal kaleetan baan uga jeedaa meesha oo fadhiya dhamaantiin waan idin mahadcelinayaa shaqooyinka wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed u qabataan aad baan ku mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa ninka la yiraahdo Xudeyfi oo wadankan Sweden aan isleeyahay kaalin weyn ayuu ummadda Soomaaliyeed ka qaatay intuu TV-ga qaranka u shaqeynayay meel kasta oo ummadda Soomaaliyeed ku kulmaysana mar walba habeen iyo maalin waa nin taagan oo ka shaqeeya horumarinta bulshada marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqadaas uu hayo waxaan rabaa intaas mahadcelinta ka bacdi waxaan kale too aan maxay ahayd ayadana aan rabaa inaan iraahdo marti sharafta kale ka ogolay gedisan meesha fadhida oo aan wariyaasha ahaan idinkana aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa qaybta aad ka qaadateen soo dhaweynta agaasimaha iyo dabaaldega maanta loo sameeyay 32 sanad guuradii ka soo wareegtay TV-ga qaranka Soomaaliyeed inta markaan ka haro Cabdirasaaq waxaan u malaynayaa 2002 ayaan mar la kulmay asagoo Soomaaliya jooga Cabdirasaaq agaasimaha guud oo hadda uu yahay ka hor intuusan ahayn waxaan xasuustaa TV-ga qaranka xaruntii meeshii kaydka u ahayd ninkii lafdhabarka u ahaa oo intii dagaalada Soomaaliya ay jireen ninkii xanaaneeyay oo ka shaqeeyay way inaan wixii qaranka Soomaaliyeed uu lahaa inaysan lumin waxaan leeyahay taasna aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa qof kasta oo ilaaliya ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay amaalba ummadda Soomaaliyeed waxaysa qof kasta oo qariba ummadda Soomaaliyeed waxay leedahana hadda ummaddu way la xisaabtami doontaa waqti ay noqoto marka arintaas aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan xasuustaa waan booqday halkaas waan tagay dagaaladii sokeeyay intay jireen wad ogtiin oo dadka Soomaaliyeedna dhexdooda dagaalaha jiray adduunka Mareykanku waa kii Soomaaliya tagay oo ciidamada UN-ka la geeyay TV-ga waxba gaargaaray oo waxba madaafiic waxba gaaray laakiin intii kale wixii Soomaaliya bil qaysan lama bil qaysan sidaas ayuu igu yiri waana muuqataa dad Soomaaliya ogi dadka marka xanaaneeyay buu kamid yahay aad iyo aad baan marka hawshaas ayada kaaga mahadcelinaynaa amaalkeen waxaan leenahay marka uu helay qarankii Soomaaliyeed markii dib loo agleelay oo dib loo hagaajiyay hadda ayadii baa loo dhiibay waxa la yiri waxay agaasimaha guud ee warfaafinta ayaa loo magacaabay agaasimaha guud waa wasaaraddu waxay ku taagan tahay oo shaqeynaya waxa kale wasiirku waa siyaasad iyo hawlo kale ka shaqeynaya laakiin qofka asalka wasaaradda ka shaqeynaya marka amaalkiina hadda waxaan isleeyahay dadkii Soomaaliyeed waa ku gudeen walaalle ayaan isleeyahay inta ka badanna waa naga astaayishaa aad iyo aad baan u mahadsantahay dhamaantiin marka waa idin mahadcelinayaa ana waxaan ahay nin ganacsada halkaan joogo oo Soomaaliyeed dad badan walaalka waxaan rabaa in yaro information aan ka siiyo dhulkaan aan joogno Soomaalidu hadda xilligan aad iyo aad u wanaagsan ganacsigooda aad buu u shaqeeyaa
iskuulla waaweyn baa jira ilaa dugsi sare ayaa jira oo dadka Soomaaliyeed leeyihiin ilaa iyo hadda intaan xasuusto 3 iskuul ayaa jirta oo waaweyn oo dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxa jira meela ilmaha lagu barbaariyo oo lagu xanaaneeyo ilaa iyo 10 gaaraya oo dadka Soomaaliyeed leeyihiin dhammaantoodna inta badan waxa wax ka barta waa ummad ilmaha Soomaaliyeed weeye iyo dad kale ayaguna wax ka barta ganacsiga dadka marka Soomaaliyeed leeyahay wali centerkii magaalada Maanaatiga meesha lacagta weyn ay taali lama tagin laakiin uma liidano dadka maxay ahayd qurba joogta uma liidano oo kaalin fiican baan kaga jirnaa marka intaasna waa information good aad iyo aad baan u mahadsantiin waana aad baan idin soo dhaweynaya dhamaantiin laakiin markan waxaa nala jooga isagana bile Qurxan Axmed oo isagu markaas ah gudoomiyaha xarunta saxaafadda iyo wada hadalka marka isagaas ayaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhammaan ka soo qaybgalayaasha halkan maanta isugu nimid sanad guuradii 32 iyo waliba tii afaraad dib u howlgelinta TV-ga qaranka oo maanta ku beegan ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo agaasimaha wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta mudane Cabdirasaaq Bahlaawi oo wadankan booqasho ku soo gaaray waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo xildhibaanka deegaanka Sweden qabiir hore oo saxaafadda oo inta nala fadhiya agaasimayaasha waaxaha Yurub Scandinavianka bartamaha Yurub England iyo waliba marta sharafta kale ee joogta ee wariyaasha ah ee wakiilada ka ah miidiyaha kala duwan waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ee halkan jooga Sweden ganacsatada ugu horeeyo milkiilaha xaruntan ee Jubba dhammaan waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ruuxantii markii aan ka hadalno miidiyaha qaranka ama TV ahaado ama idaacad ahaato ama wargeys ahaado waa waxa ay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed waxaana ku faraxsanahay inay maanta ay shaqeynayaan ummaddan ay u adeegayaan run ahaantii ma jirinin dowladihii hore ee ku meel gaarka ah ee laga soo bilaabo 2000 ama kuwii kale la isku dayay fashilmay media idaacada wargeysa ay bilaabi jireen magaalada Muqdisho ka shaqeey jiray wargeyskii dalka oo kale laakiin waxa moodaa inay markay dowladdaasi la bedelo ay wargeyskaas ama idaacadaas iska dami jirtay laakiin maanta waxaan haynaa meel ka fiican in uu noqdo TV-ga iyo idaacaddu ay noqdaan wax joogto ah oo aan sida madaxdu isku bedeshay sanaacaduhu iyo miidiyaha qaranka isku bedelin ruuxantiina waxaan arrintaas ka shaqeeyay raggii hore agaasimaha ugu horeeyo ee maanta halkan nala fadhiya iyo qaar ka mid ah wasiiro ka tirsanaa dowladihii soo maray wadanka TV-ga qaranka waxaan kaloo ku ammaanayaa kaalinta muhiimka leh ee uu ka geystay ama uu u noqday mid dhexdhexaad ah marka loo fiirsho siyaasadda maanta wadanka jirta waxaad la socoteen in madaxdeena mas'uuliyiinteena Soomaaliyeed ay muddo badan iskhilaafeen ra'iisul wasaarayaal la riday madaxweyne lagu dhigay gudoomiye baarlamaan lagu dhigay laakiin markii aan fiirsano TV-ga waxa muuqata inaan maaragta arrintaas u dhexdhexaad ka yahay oo uusan wararkooda kala duwan oo gooni u baahi jiray aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay markana waxaan u wacayaa maxamed cabdulqaadir daahir oo isagu ah nin ka soo shaqeeyay warbaahinta qaranka waliba waqtigii ay u baahnayd in uu wadaniga Soomaaliyeed dhexda u xirto oo uu markaas dhinaciisa ka hirgeliyo hawsha wadanka Soomaaliyeed ku soo dhawo mikrofoonka waa maasantahay Faadumo marka hore waxaan salaamayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane Cabdirasaaq Bahlaawi agaasimo waaxyada kala duwan ee qaaradda Yurub TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo saaxiibkan ugu horeeyo Xudayfi iyo sidoo kale Yusuf Garabey waxa sidoo kale salaamaya baahda kale iyaga aan ka wada tirsanahay SNTV inkastoo aan khudbad dheer aan soo diyaarsan laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkaan ku wada xusno xafladii sanad guurada afaraad ee markii dib loo howlgeliyay TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo aad dareemaysaan in waqtigii dib loo howlgelinayay ay ahayd waqti aad xasaasi u ah oo xitaa maaragtay Muqdisho kala bar ay haysteen nimankii ummadda gumaadi jiray ee haddaba xataa gumaadka ku haya al-shabaab
runtii waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee ku dhiiraday in ay dadkooda u shaqeeyaan oo markaas TV qaranka hawshii wax ka bilaabay markii ugu horreysay idaacaddii la howlgeliyey haddii aan qaldanayn 23 Oktoobar oo xilligaas xataa idaacaddii dhan la caburinayay oo al-shabaab xataa ay qasbayeen inay sheegaan magaca ay sheeganayaan oo mujaahidiinta inay dhahaan annagu waxaan ahayn dadkii ku dhiiraday inay dhahaan kooxda xag jirka ah ee al-shabaab ama qawaariijta ah ilaan qof oo maaragtay sheeg ummadda muslimka laynaya laguma tilmaami karo inuu yahay islaam marka waana hadafka goosanayna wuxuu ahaa hadafkaas inaan u shaqeyno dadkeennii oo maaragtay sheeg dhibaatadii ay nimankaas ku hayeen aan soo bandhigno dad badan oo meediyaha ka mid ah qaarkood oo kuwa barefadka xataa way ku daydeen waxaa sidoo kale halkan ka xusayaa inaan jeclaan lahaa inaan soo wada xasuusano u duceyno dadkii hadafkaas in la xaqiijiyo ugu geeriyooday oo ay ka mid ahaayeen dad badan Sheekh Nuur Abkey Cabdisataar iyo sidoo kale maxaa la yiraahdaa Liibaan Cali Nuur iyo dad badan oo ku waxyeeloobay iyo meedihii kale ee private-ka ah xataa qaarkood dad badan u shaqeynayay ama madax bannaan u shaqeynayay iyagana sidaas oo kale loo targeeyay maxaa dadkii u shaqeynaysiin maxaad wariyo u tahay lama yaqaan hadda ninka dilaayo lama yaqaan sababta uu dilaayo wuxuu u targeeysana waxa waaye maxaa dadkan u soo bandhigaysaa waxa horumarka magaalada ka socdo qaarkoodna ani waxaan tilmaami karaa marka inay iyagu diidan yihiin inay dadka u shaqeeyaan oo maxaa la yiraahdaa dad kale ay u shaqeeyaan oo maaragtay maxaa loo soo bandhigayaa horumarka jira marka waxaan dhigi karaa nolol la dagaalan waa nimankaas waan rajeynayaa in dadka halkan joogo iyo dhammaan dadka ummadda Soomaaliyeed ee daawaneysaba iyaguna ka go'an tahay inay la dagaalamaan iyaga iyo kuwa kale u shaqeynayna waa jeclaan lahaa in la dagaalamo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan teamkeeni oo dhan halkan isugu wada joogno maanta Sweden oo aan ku xuseyno sanad guuradii afraad markii dib loo howlgeliyay TV-ga anigu iga weyn yahay markii la aasaasay 1983 ayaa la aasaasay waana sanad guuradii 12 markii la howlgeliyay TV-ga dhan laakiin burburkii kadib wax badan baa burburay TV-ga wuxuu kamid ahaa hay'adihii burburay qodbad badanna kuma fiicni oo mahadsantiin salaam ya dhamaantiin ambaliyo ayaan leeyahay TV qaranka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale si gaar ah aan u xusayaa bahda hadda ku shaqeysa Muqdisho oo ah xaruntii headquarter-ka TV qaranka oo iyaguna aad dareemayso wallahi inay xaalad adag ay ku shaqeynayaan waxaan leeyahay hawsha halkaas ka sii socoto teamkan Europe iyo meelaha kale oo adduunka meel kasto TV-ga kaliya laga daawado u yahayna iyagana hawsha sii wadaan waana mahadsantiin hambaliyo SNTV aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markana waxaan u cayaar ruug cadaas saxaafadeed oo isagu la yiraahdo Cabdulaahi Muuse Cabditoon ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan jeclaa agaasimaha guud agaasima Bahlaawi ka bacdina hadlo waayo waxyaalo badan oo muhiim uu sheegi lahaa aad baan horta ugu faraxsanahay inaan dhalinyaro hadda soo barbaartay oo warfaafinta maanta la kulmo aniga waa malayn kartaan baan u malaynayaa intaan ka shaqeynahay wax yar ma ahan warfaafinta waxaan bilaabay 2073 badankiina ma dhalan baan u malaynahay labada koox afka iga boobay marka meel arrin dib badan weeye warfaafin in laga shaqeeyo wax sahlan ma ahan waxaan xusiistaa markaan bilaabaynay dad yar baa joogay waa soo wadaa waa iga boobay walkay aweys oo ka yimid London waa isku lood baan ahayn isku group baan ahayn inkastoo hadda xoogaa iga muuqaal fiican yahay koofida waxay taa maaqan waa rag badan baa jooga rag badan oo meelahan ka dhow waa joogan warfaafintu runtii waa arrin xasaasiya qof kastana kama bixi karo markaas runta oo iyadoo runa laga hadlaayo waa arrin u baahan feejignaan badan waa arrin u baahan inaad meelo badan fiirfiiriso waa arrin u baahan inaad xaq dhowrka ka adag tahay مثلا tusaale yar markaan ka soo qaadano anigu waxaan ahaa qorayaashii sare ee wakaaladda wararka ee Soona waxay ahayd lafdhabarka warbaahinta qaranka waxaan soo maray TV-na ma aadi jirin idaacana ma aadi jirin ma jirto waxaas meel waxay ahayd waxaas soo maray oo baad idaacada ka bixi jiray luqad kasta idaaca ka baxaysa waxaan u maleynayaa wararka waxaan sii jirnay ugu yaraan dhowr iyo 10 luqadood oo ajnabiga marka Soomaali laga reebo من برنامج اللغة مالك كاسن كراس بسيدين كرامة جرو صونا واحد كلا رنتي لفظنا كوجو واحد كبدها تلبرنت كدن بي هيجا قابشنا وكالها دون كردن أفر لفتك سعوات دارن تاي واشخيرسا يعني أول كسوة قالت آخر سوق بعن تاي هل كاسن مرك إذا عدا يورجيس كي كعاون جرني رنتي واحد كلا جرو رقابة كمل يرهدو وأيوة اسكفر أفر لفتك ساع وجيران سديد الطون إذا عند يسنجرني
idaacada ka mid dalka dariska nala ah ayadoo maba aan damin jirin sida waxba noo dhaafin marka waa dareemi kartaan xasaasiyadda ay warfaafintu leedahay waxaan runtii dhalinyarada soo kale ku baraarujinaya warfaafintu shaqadeedu waa shaqo wada jira macnaha warqadda aniga markaan qoraha sare ah tusaale markaan soo qaato ninka waryaha markuu warka keeno oo qoraha soo marto oo mid ku xira soo marto marka afraad aniga ii imaan jirtay markaas ka bacdan dib akhrinayna marka ka bacdan okay aan saarayna waa hal akhriyo marka laakiin haddaad hal nin warqad ku akhriso waxba qalad baa dhici kara waxba dhici kara markaas waxay u baahan tahay warfaafintu iga fiiri han noqoto TV han noqoto meel kale waa arrin u baahan team work waxa la yiraahdo wada shaqayn nin kaba dhama markaan wakaaladda wararka aan bilaabaynay waxay ku joogeen shaqaalaha meesha ugu tagnay waxay ahaayeen waxaan u maleynayaa 6 qofood hadda geeridooda maqal walaalkii maanta meesha ugu jeedo maxamed cabdulqaadir walaayo wuxuu ka mid ahaa meesha shaqada ugu tagnay iyo 4 kale tuulooyin meelaha degayaha leegu yiri marka waa dareemi kartaa anagu nasiib waxaan u yeelanay niman wax yaqaana oo muddo soo shaqeynayay oo tilaan la soo shaqeeyay oo wixii fahmahaya ayaan ku gambadno waxna baray faraha naga garaacay adig wax faraha ka garaaca lama arko marka ina khaldaad gashaa way saalantaa runtii waxa dhici karta markaan qoraha sare ahayn wariyo markuu warka keeno halkaas iska fariisanaya hadda waa garanaysaa nin waryaha maanta oo dhan soo tacbaanayo war soo aruurshayo laba bag isku soo qorana labadii bag laba bargaf ka soo reebaa anuguna mid baa wuxuu tagayaa meel diin lagu hayo oo diin laga macnaynayo markaasuu bag isku soo qorana annagana diinta xasaasidan ku nahay sideedaba waxa diinta ku saabsan annaga feelka qashin ku darna way adag tahay intaad iga dambaysaan arrinta diimooyinka kuma degdeg jiraan og haddii wax diin ku saabsan yihiin waa la tashi fayl meelaha iska gashin jirin wariyo ma hadli karin waxaan u maleynayaa maanta lama dhigi karo wariyaha waa fayl warkaagu hoogaa arrintu iska culusta sida hore ma ahan marka waxaasoo dhan waxaan u soo maray warfaafintu dhibka ay leedahay iyo wada tashiga iyo wada shaqayntu faa'iidada ay u leedahay warfaafinta aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mar kale waxaan u wacayaa professor Waasuge oo isagana aan ka sugayno xog badan inuu dhankiisa naga sii waa iga kala warkii ay kala dhumaado waxaan daba raaca waxaan tixraaca waa moogta saaxiibka hore cadaaga aniga horta cadaan waa ka bax dhalinyara waxaad ka bari wuxuu ka shaqeynaa dawaan dhageysanay waa 1973 juugan ay duun ayaana la wada qaatay wasaaradda warfaafinta lagu soo qoray annagoo 8 qofood waran kala qaybiyay isaga sababna u tagay aniga xigta October aan aaday qaar waxay tageen raadiyo Mogadisho qaar waxay tageen maxaa la yiraahdaa wargeyska waa la kala qaybiyay ala kulli xaal waxaan ku faraxsanahay marka hadda meesha markaan fadhiyay waa fikiray ilaahu karo kala hayga dhagaleer ruucada war aniga waa yeerahay 20 sano u dambeeyay waxaan la shaqeynayay ragaan dhalinyarada meesha wada fadhiyo laga soo bilaabay Universal TV farbarashada caruurta xurufta Soomaaliga ilaa SNTV oo hadda 3 sano aan joogo oo aan ka sameeyay masraxiyada riwaayadaha soo bandhigay hablaha baad guursan doontaan critical sida adduunka la soo bandhigay cilmiga caado waa la socotaan waxa soo saaray qabyo laba qabyo ko waa la socotaan ummadda aan baray markaad ka baxdo waxaan soo saaray barnaamijkii naxwiga af Soomaaliga aqoon waa aftiinaa waa la socotaan Universal SNTV ummadda waxaan ku baranay naxwaha af Soomaaliga qolob magacayaal fal wixii lamada waxaan soo saaray buugii farbarashada caruurta waa la socotaan kulligii digiya soo baxay maxaa la kala ugu dambeeyay way arag the best program illa hadda way arag socdo waa la socotaan khamiis walba markii saas loo wada fadhiyo maxaan ku soo qaataa topics kala duwan SNTV wuxuu aan ku noqday marka sida awgeed 3 wa ma ahan www.com oo kale ma ahan waa wargelin wacyigelin waxbarasho aniga waxaan ku daray magaranaysan ma aan ku daray ma weelo ma aan u baxshay hadda barnaamijyada ugu dambeeyay marka daawataan waxaan rabaa SNTV ma wadada markaan mareelan waxaan ma waxbarasho wacyigelin wargelin iyo maaweelin ikraale hada
ninkaan meesha fadhiya agaasimaha cayaar ma fadhiyo waxaan anaga aan faraha kula jirno oo Norway Stockholm Londra Sudan Kenya Mogadishu howlaha ka socdo fureeda waa kara ma kala ka raadina maxay ku shaqeeyaan raggaan meesha wada fadhiya sheegay aniga runtaadii sheegaya waxaan aad iyo aad wili caad hadda ilmeynay marka halkan fadhiyay dhalinyarada xamar ka shaqeynayso ee SNTV wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa geesiyaal dhalay weeyaan wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa geesiyaal ahlu janna kulligooda xaaladaha ay ku shaqeeyaan kuwa xamar jooga waa ilmeeya annagana waxbaan sheeganayna qurba joogta u kaca SNTV anaa leh adaa leh erey gabadha halkaa ka sheegaysa run ahaantii maantay waa maalin loo dabaaldegayo sanad guuradii telefishinka qaranka weliba waxaa nala jooga agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi oo isagu nala jooga gogashana waxaa noo dhigay wariye Xudayfi oo isagu ah madaxa Scandinavianka ee warbaahinta qaranka run ahaantii sidaad ogtihiin maantay waa lagu idil yahay waxay ka yimaadeen shaqaalaha warbaahinta qaranka iyagoo markaas ku soo dhaweynaya mudanahan caawa martida noo ah isla markaasna aan nasiib u yeelanay sanad guurada telefishinka qaranka oo isagu 32 sano jirsaday gaar ahaanna markii dib loo soo celiyay ay noqotay muddo 4 sano hadda laga joogo waa arin lagu farxo waxa dhanka kale isaguna mudan in la xuso waxa nala jooga oo marti noo ah xildhibaanka dhammaantiin waan idinku soo dhaweynaynaa mar kale Xudayfi ayaan markan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa si uu noogu faahfaahiyo sanad guuradan iyo taariikhda uu soo maray warbaahinta qaranka gaar ahaan telefishinka 4 sano gaaray hadda bismillaahi raxmaani raxiim agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha mudane Cabdirasaaq Bahlaawi xildhibaan Cali Salaad Jey xildhibaanka magaalada Stockholm marti sharafta qiimaha badan leh ee ururada bulshada wakiilada ama madax qaybeedyada SNTV ee warbaahinta qaranka ee qaaradda Yurub bahawadaagta warbaahinta Soomaaliyeed iyagoo naga aqbalay inay nagala soo qayb galaan bahda ururada bulshada ganacsatada oo nagala joogo walaalkeena cilmi degal oo si qurux badan ugu soo dhaweeyay maqaayadan qiimaha badan leh bahda fanaaniinta guud ahaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ina maanta halkan ka faalayo oo ka taariikheeyo in badan mar raba inaan ku fogaado kaliya waxaan rabaa inaan agaasimahan kaga warbixiyo xaaladda guud shaqaalaha ama maxay ahaydeen xarumaha SNTV Europe inay yihiin xarumo ku unkamay ama ku bilowda xilli loo baahnaa xilli dadka Soomaaliyeed aysan haysanin muuqaal ama meel ay aragtidooda ay ku gudbiyaan oo ay ku soo bandhigaan runtii waa la soo dhabar adeegay waxa naga mudan amaan oo hambalyo naga mudan oo qadarin naga mudan dhalinyarada yaryarka ah runtii iyaguna u soo dhabar adeegay ee ka shaqeeya gudaha wadanka Soomaaliya min gobol tuulo ilaa degmo waxaa la qabaa professor Waasugo runtii amaantaasi amaan ka badan ay mudan yihiin waxaan la qiiroonaa oo mar waliba halkaan aan jecelahay inaan tacsi uga diro intii iyagoo howlahooda qaran gudanaya ku geeriyootay in ilaahay u naxariisto intii ilaa iminka u dhaawacanna in ilaahay maxay ahayd ka bogsiyo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markana waxaan u wacayaa Cabdullaahi Taajiro oo isagu kamid ah madaxa warbaahinta qaranka ee Netherland Cabdullaahi Taajiro oo ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xildhibaanka deegaanka iyo rugcada saxaafadeed iyo waliba marti sharafta ururada bulshada wariyaasha bahda warbaahinta qaranka Soomaaliyeed halkan isugu yimid dhamaantiinba hambalyo ayaan leeyahay sanad guuradii 32 iyo waliba sanad guuradii afraad ee markii dib loo aasaasay telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo aan halkan maanta isugu nimid dhamaanteennaba si markaasi aan ugu dabaaldegno iyo waliba soo dhaweynta agaasimaheena
cabdirasaaq cali bahlaawi oo qaaradda yurub safar ku yimid maantana aan ku farxsannahay inaan halkaan isku aragno oo aan munaasabadan qaaliga ah aan ka wada qayb galno waxaan filayaa taariikhda warbaahinta qaranka Soomaaliyeed iyo waliba qaybaheeda kala duwan telefishinka raadiyaha wakaaladda wararka Soona iyo waliba wargeysyada qaranka agaasimaha ayaan jeclahay in aan u daayo in taariikhdaasi uu si aad u faahfaahiyo aniga waxaa ka mid ahay isla markaasna aan warbaahinta qaranka aan u joogaa dalka Netherlands gaar ahaan waxaan sidoo kale qaabilsanahay bartamaha Yurub ilaa Germany ilaa Switzerland meelo fara badan Yurubtaas sidoo kale waxaan halkaasi ku nahay agaasimo team badan oo si aad u shaqeeya oo inkastoo aan team ka soo wadin sababo jira awgeed maadaama shaqooyin badan ay dalka iyo meelahaas ka jiraan iyo waliba dadka mashquulsan iyo waqtigii oo annaga nagu yaraa waxaan halkaas ku haynaa agaasimo inaan u adeegno bulshada maadaama bulshada ay tahay bulshada iskala telefishinka say ognahay warbaahinta qaranka waxaa iskala ummadda Soomaaliyeed dhammaan qof walba oo Soomaali ah waxa uu leeyahay warbaahinta ma ahan wariyaasha kaliya inay leeyihiin agaasimayaasha maanta bahlaawiya jooga bari qof kala imaan kara annaga joogna dad kala wariyaal kala imaanaya marka saas in loo ogaado bulshadaan u shaqeynaa si mutadawacnimo ugu shaqeynaa barnaamijyadooda u soo saarnaa siyaasadda ma galno laakiin arrimaha bulshadaan ka shaqeynaa inkastoo qaaradda Yurub ay culays badan tahay oo dhibaato ay tahay badanaa in safarkii iyo waxyaabo badan haddana inta karaankeenna waa u qabanaa bulshada maadaama ayagu ay leeyihiin warbaahinta sidaad la socotaanba waxaynu dhexdii bartamaha uga jirnaa sanad guuradii telefishinka qaranka iyo waliba soo dhaweyntii agaasimaha warbaahinta qaranka run ahaantii waxaan doonayaa markana inaan u waco Cali Salaad Jay oo isagu ah xildhibaan Soomaaliyeed mudane ku soo dhawow بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله ما هذا دهر تسكله الكأسوك كأني ضد سلامنا نجد أنت اسكبعدي وحن يجعل قيب سنة يا سودوين تأجسمها جود وسارد ورفافنت الصوماليات مضان عبد الرزاق يوسف عبد الرزاق علي يوسف بهلاوي وحن هذا علينا يا معركة حديفي تيم كيسي وحفلة قروح بدن سواء أجسمي waxaan kala hambaleynayaa sanad guurada 32 asaaskii TV-ga qaranka iyo dib u habeyntii isla TV-gaas 4 sano ka soo wareegatay intaas ka bacdi waxaan kala u mahadcelinayaa warbaahinta qaybaheeda kala duwan dadka ka soo safray meelaha dheer Sweden ka baxsan waxaan leeyahay ku soo dhawaada Sweden gaar ahaan Stockholm ku soo dhawaada runtii farxadaas ayaan idin la qaybsanayaa intaas ka bacdi Yaxye oo reer UK haday wuxuu sheegay guri walba Soomaaliyeed oo aad tagtid inay TV qaranka inuu ka daaran yahay waa runtiisa laakiin sababtu maxay tahay aniga waxa aaminsanahay TV qaranku akhbaaraha uu sheego in kulan bay sheegaan TV-da private-ka ahna laakiin waxa Soomaalidu ku jeclaatay waa magacaas national Soomaaliyeed marka wax qarannimo iyo isku duubni ka muhiimsan oo aad wax ku heli kartid ma jirto wax waddankayaga nooga muhiimsan ma jirto meeshaan joogno oo u jeedin marka waxa isku la dardaarmaynaa runtii aad iyo aad ayaan ma aragtay ugu faraxsanahay geesnimadii lagu tilmaamay waa ku raacsanahay saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee waddankii ka shaqeysa runtii waxa ay u dhabar adeegeen iyo meesha ay soo gaarsiiyeen waxa ay ammaan ku muteen waaye kaliya waxaan idin kula dardaarmayaa intiina kala bahda oo saxaafadda oo dhalinyarada u badan runtii saxaafaddu waxyaabo badan bay bulshada mas'uul uga tahay wacyigelin iyo waxbarasho iyo intaba markii la isku duubo laakiin waxa kamid ah qaybaha ay mas'uul ka tahay inay informationka dadka gaarsiiso akhbaaraha inay bulshada soo gaarsiiso marka akhbaartaasi waxa dhici karta akhbaaraha qaar kood dadkan aan wax tarayn wax macnaana aan ku fadhin inay dib soo saaidiyaan ma ahane marka qofka mas'uulka oo ama qoraaga ama wariyaha waxa loo baahan yahay inuu mas'uuliyad sare intuu qaato waxaas haddii waxba macno sameeyay in dadka si kala fogeynayaan ma ahane
inuu iska dhaafo waxyaabaha qaarkood soo deynteedu wax laga faa'iidahayo aysan jirin marka in la miisaamo horta waxa hawlahaasna waxa aad ugu badan hadda waa website-yada inta badan waxa soo qora waxyaabaha fadhi ku dirarka oo kale oo macnihii saxaafadda qayb ka mid ah macnihii ka dhumiya runtii marka waxa isku dardaarmeynaa waxa soo gudbinaysiin ama information dadka wax taraya inuu ahaado ama wax uu macno ku fadhiya laakiin wax dadka si kala dilahay waxna aan sameeyeen haday yihiin inuu adigana waqti kaaga dhumin bulshada aan lagu kala dilin saxaafaduna waa mididaas labada aflo dhinaca rabtaa oo adeegsan kartid afka fiican aad u isticmaashiin mar labaad iyo mar saddexaad agaasimaha soo dhaw ayaan leeyahay waana mahadsantahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaan cali aad ayuu u mahadsan yahay markana waxaan wacayaa yuusuf axmed garabey oo isagu ah agaasimaha wadanka UK United Kingdom kusoo dhawow mudane bismillaahi raxmaani raxiim aad ayaa idin wada salaamaya dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee xaggan ku wada sugan gaar ahaan waxaan halkan caawa ku soo dhaweynaynaa agaasimaheena guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha mudane Cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawi mudane ku soo dhawow waxaan maanta u dabaaldegaynaa sanad guuradii afaraad ee markii dib loo aasaasay telefishinka qaranka Soomaaliyeed mudane waxaan ka warrami karnaa annaga inta aan la soconno kolley waqti dhow ayaan ka wada imaanay dalkii jaaliyadda maanta aan la joogno waxyaabaha ay kaaga baahan tahay in ay kaa dhageysato waxaa ka mid ah waxqabadka TV-ga in aad adiga shakhsi ahaantaada uga waranto annaga waxaan ka warrami karnaa oo kaliya qaaradan Yurub ee aan joogno waxaa ku nool jaaliyad aad u fara badan haddana culeyskeeda wadata waxaana kula eedeeyaa oo la yiraahdaa jaaliyadeenna waxa kama soo deysiin oo waa aad necabtihiin dad gaar ayaad u hadashaan laakiin annaga shakhsi ahaan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waa isku mid telefishinkanna waxa uu taagan yahayba ummadda Soomaaliyeed waxay rabtaa noqoto meel walba ka timaado dalka Soomaaliya waxa aan u taagannahay in aan qarannimada iyo shacabka Soomaaliyeed isku mid ka dhigno isku midna aan uga soo wada jeesano cadawga wadanka dilaystayna aan meel gaar uga soo wada jeesano hadalka kuma dheeraanayo mudane oo ku soo dhaweynayna gaar ahaan jaaliyadda reer London waxa kaaga socda Professor Waasuge oo aad aduguba la socoto iyo Faadumo Faande iyo Xanaan Shidane Xarane iyo aniga waan ku soo dhaweynaa mar labaad jaaliyadana aad ayaan uga mahadcelinaynaa walaalkay Xudayfi oo xafladan quruxda badan noo sameeyay isagana aad ayaan uga mahadcelinaynaa waa mahadsantihiin markana sidaad ogtihiin shaqaaluhu waxay ka yimaadeen gabi ahaan Yurub oo dhan inta ka soo gaarto ka soo qayb gali kartay xafladan quruxda badan reer Norway ayaan markana mikrofoonka ku dawayaa waxaana la jooga Xasan Rasto iyo waliba Cusmaan Caana Booro si ay markooda ayagana ay uga gutaan kaalintoodii hambalyeynta sanad guurada sanadka Rasto ayaan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa mudane aad baan ku soo dhaweynayaa inkastoo dalkan deganeen waxaan ka mid ahay warbaahinta qaranka dadka ka howlgala qurbaha dalka Norway طبعا قارنا مجلس تي في وسوق اللي قال كلا يابا حسن راسته اللي يقولون نيسان حسن قيبتن aan ka qayb qaadanayo maanta labada munaasabadood oo isku aadiyay soo dhaweyntaada dalkan Sweden aad ku timi طبعا waxaan jeclaan lahaa inaan noogu timaado Norway laakiin waxa la yiri halkan aad ku yakaatay waxaan filayaa markale inaan soo booqan doonto aniga waan soo safray si aan adiga ku soo arko طبعا dhowr mar baan sanad dadkan Scandinavian baan yiraahdaa aad baan ku soo dhaweynayaa oo ku salaamayaa anoo ka faa'iideysanayna waqtiga waxaan hambal leeyahay inta ka howlgasha telefishinka qaranka guud ahaan warbaahinta qaranka dhalashadana waxaan leeyahay hambalyo saaxiibkii Caana Boorana kulay Norway isla joognayo waa qaybsanaa warbaahinta qaranka sida aan anagu isla socono waa Soomaalidu isla socotaa kaliya waxaan rabay inaan dabcan qofka aan hayaan ku daro waxaan ahay qurbo joog aad ugu raagay qurbaha dadka telefishinka qaranka ka shaqeeya inta badan waxay yiraahdaan waa isla shaqeyn jirnay أنا هلكن وحيوني 1989 مركا نصيب كان دير هاي دتك كلا وحويان يقوم بدل بيسيقانين أنا جاي أنا قلنا قربجوج وأنا يجي قدر سمي صوتنا وحيتاعي إن أنا هني سوماليا وبين تقارن كان عن كدورتي وبين تكلا سيدا أوجد برش الله صوته مركا أدبنا عم بلي ولا أدنى أدبنا كوسو لوينيا عن بورا كوريجنا يسنبل نوروي إنه يلهو أوسلو نوروي aad ayaa mahadsantahay xasan waxaan soo dhaweynayaa agaasimaha warbaahinta qaranka Soomaaliyeed bahlaawi warbaahinta warfaafinta mudane bahlaawi
oo run ahaantii u dhabar adeegay warbaahinta intuu maaragtay uu hayay xilka. sidoo kale waxaan aad hal mar u jeedinayaa saaxiibkii Xudeyfi oo asaguna maaragtay madashaan inoo sahlay dadweynaha iyagana waxaan leeyahay ku soo dhawaada. waxaan kaloo maaragtay ayaguna aan maaragtay aan u hambalyeynaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo run ahaantii sanad guuradii 32 ay maanta ku agtaa. waxaan leeyahay hambalyo wariyaasha kale maaragtay oo ayaguna Yaxye iyo muxuu ahay ninka la yiraahdo Cabdixakiin Tuunka iyo Maada oo aad iyo aad run ahaantii u shaqeeyo. waxaan leeyahay iyagana hambalyo aan leeyahay dhammaantiinba maantay waa farxad bay noo tahay, laba farxadood bay noo tahay maadaama maaragtay agaasimeennii aan la kulannay iyo weliba sanad guuradii 32. marka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. markana waxaan u wacayaa oo mikrofoonka ku soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha mudane Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi oo isagu markaas xambaarsan xog badan iyo waliba waxaan leeyahay mudane ku soo dhawow annagoo dhan. bismillaahi raxmaani raxiim. xildhibaanka madaxda warbaahinta dalalkan Scandinavian-ka wakiilada kala duwan ee halkan ka shaqeeya madaxda kala duwan ee iyaguna ma garanaysa halkan degan jaaliyada dhammaantiin marka ugu horeysa horta salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanka bacdi runtii aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan halkan idinku imaado oo aan ka soo safray waddankeennii hooyo oo muddo 27 sano runtii oo waqti ugu dambeeyo dhibaato taagnayd anagu ahaa dadkii tirada yaraa ee halka ku haray. waxaan rabaa inaan muddo badan baan la hadlay, waxaan isleeyahay waa waqtigii waa la daalay, laakiin waxaan rabaa inaan soo koobo run ahaantii ujeedada iyo safarkaygu waxay ay xambaarsanayeen. saad la socotaan sanad guuradii 32 ee asaaska TV-ga qaranka iyo dib u kicintii TV-ga SNTV munaasabadda ay xambaarsan tahay waxay munaasabad aad iyo aad u ballaaran oo qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed muhiim ugu fadhiday. haddaan ka warramo 3 sano la soo dhaafay waad ogtihiin oo dalka dhibaata ka dhacday. qabiil baa la sudlay, hogaamiye kooxeed baa jiray, arrimo kale tiro badan oo dadka dhexdiisa jiray, colaada waxaas waxay ahayn waxyaabo runtii keenay in dad badan oo Soomaaliyeed oo 30% ay maanta qurbaha yimaadaan oo ay ka soo tagaan guryahoodii iyo ehelkoodii. runtii anagu intaas waxyaabihii aan culayska saarnay waxay inaanu dadka aanu wacyi gelino. waxaa la asaasay TV-ga qaranka SNTV oo runtii dadkii dhalinyarada asay qaarkood ilaahay maanta u naxariistay ay geeriyoodeen. wixii aanu ku bedelnay waxay ahayd dadkaas inaanu ehelkoodii aanu dad ka mid ah aan meeshii ku qorno oo ay shaqeeyaan oo maanta wasaaraddii ka shaqeeya. waxay ahayd arrinta ugu horeysa oo dhiirigelinta mudan runtii. arrinta labaadna waxay ahayd inaan dadka Soomaaliyeed meesha geliya oo laga wacyigelin karo waxay ahayd warbaahinta dowladda oo ummadoo dhan u dhaxaysa inaanu samayno ilaa 35 xafiis oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo ay maanta ku jirto Sweden iyo Scandinavian-ka inaanu aasaasno oo samayno waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee kala tegay ee dhibaatada dhexdooda ka dhacday in warbaahinta qaranku ay isu keento oo ay hormuud u noqoto. arrintaas waxay arrintii ugu muhiimsanayd. aniga waxyaabihii halkan runtii aan aad uga faa'iido waxaa ka mid ahaa jaaliyadda halkan degan oo si weyn runtii ii soo dhaweysay oo weliba aanan aad marka loo fiiriyo Soomaalinimada iyo dadka halkan jooga sida isku xiran yihiin waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed maanta inay u baahan yihiin in qof walba Soomaaliyeed meesha uu joogo kaalinta uu leeyahay u guto. waxaan maraynayaa anigu waagii aan wasaaradda ku biiray absidoon way ka sheekay runtii waxaan ka mid ah dadkii dhalinyarada ahaa ee meesha markii dambe ku haray ee go'aansaday runtii inay dawaal wada qaxay meeshii la isma soo wada raaci karo bal qof walba wixii uu bartay anagu dadkii jaamacadaha iyo waxbarashada ee canshuurta ku bartaan ahayn runtii. waa ogtiin carruurteena maanta waxaan ku korinaa lacag baan dhiibnaa iskoolada ku dhiibnaa kuma koraan, laakiin anagu islaantii masaakiinta ahayd ee xaabada canshuurta looga qaadayay waxeedii bay waxaan ku korray runtii. taasaana keentay runtii aniga iyo dad tiro yar inaanu meesha ku harno. waxaa ilaahay mahadiisaa marka dhibaatadaas la soo maray
waxaan isleeyahay maanta dadka soomaaliyeed waa ka bogsadeen waxyaabaha aan maaragtay messageka idin wadaa waxay ahayd in dalkii dib loogu noqdo oo runtii dad badan halkaan aan ugu imid ilaa dhowr iyo 30 sano jooray inay u baahan yihiin inay dalkooda dib ugu noqdaan oo ay dadkoodii soo arkaan dhalinyarada warbaahinta ee halkaan isugu timid waxaan salaan uga sidaa wasiirkii wasaaradda warfaafinta mudane maareeye oo runtii xalay markii ugu dambeysay oo hadalnay yiri salaan ballaaran iga gaarsii halkaan waxay ku shaqeeyaan si aan ogahay duruuf kala duwan waa waxaan u imid inaan xoogaal u noqdo oon arko munaasabadan aan kala qayb galo ayagoo weliba London iyo meelo badan ka yimid waxaan isleeyahay wadanka dadka joogaa iyaguna duruuf intaan ka duwan ay ku shaqeeyaan laakiin waxaan jeclaan lahaa sida waagii horeba markii ardaygu dugsiga sare ka baxo waxaa loo diri jiray shaqo qaran waxaan jeclaan lahaa nin walba hal bil inuu wadanka yimaado shaqeeyo si ay tusaale ugu noqdaan waana sababta keentay inaan anigu halkaan imaado awal xafladaha waxaa lagu qaban jiray muqdisho laakiin hadda in halkaan aan imaado waxay horseedu noqonaysaa in tiim halkaan ka tirsanna xagga ay ka shaqeeyaan oo ay soo bartaan dadkii walow rag badan ay soo shaqeeyaan ogahay qaarkood ilaa 5 sano ama 6 sano ka hor ay wasaaradda yimaadeen munaasabadan marka qiimo weyn bay ugu fadhidaa dadka Soomaaliyeed ee halkaan jooga waxaa layga codsaday inaan jaaliyadaha halkaan jooga haddii la yiraahdo maadaama hadda Xudayfi oo halkaan wakiilka yahay inaan sii ballaarino oo runtii taasna waxaan rabaa inaad idinka aqbalo oo halkaan xafiis ballaaran laga sameeyo Sweden dhalinyarada joogta halkaan ee warbaahintana saad la socotaan dalkii waxaa ka jira tababaro iyo seminaaro la doonayo in dadka wacyigooda kor loogu qaado waxaan isleeyahay Yurub hawlahaas kama jiraan laakiin waxaa laga yaabaa haddii halkaas xagga ay ka dhacaan waxaan rajaynaynaa casuumaada idin soo diri doonaa si aad hawsha u qayb qaataan waayo fikirkiina iyo taladiina waa loo baahan yahay inaad dadka ku dhex jirtaan dhalinyarada halka xagga joogtaa inta badan sidii hore waa ka fiican yihiin waayo duruuftii ay wax ku bilaabeen oo wiilka kaamirada sida ama gabadha mikrofoonka fadhida waxyaabihii ay ku bilaabeen maanta waa ka duwan yihiin waxaa laga yaabaa tiifa dad badan oo fiirsada ama waagaa fiirsan jiray inay hadda uga duwan tahay sidii hore oo maalinba koboc iyo maaragtay horumar rasmeynayo walaalaha warbaahinta caawan la cashayn doonaa briefing gaar kala qaadan doonaa waan uga mahadcelinayaa inay halkaan yimaadaan iyaguna oo ay xafiisadoodii iyo duruufta dalalka dibadda jooga duruuftu aniga intaan joogay waan dareensanaa runtii aad baan u dareensanaa laakiin inay halkaan inta igu yimaadaan ay xaflad igu sameeyaan waxay u tusaysaa runtii qiimaha oo annaga mas'uuliyiinta aan ugu fadhino ayaga waana daari doonaa insha Allah dowladda annaga wasaaraddeenu runtii saa la socotaan udub dhaxaad u tahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ka shaqeeya waa 537 qof waxaan u maleynayaa dalka waxaa naga badan oo kaliya ciidamada xoogga dalka iyo booliiska laakiin hay'adaha dowladda marka la yiraahdo anaga ugu badan taasna waxaan ku kasbanay waxay ahayd shaqaalaheenu gobolada xarunta dibadda waliba dalal badan oo carbeed bay hadda xafiisa aan ka sameyn doonaa haddii la yiraahdo sidaasan u ballaarino sababtan waxa weeye dalka muraayadiisa waxaa mas'uul ka ah warbaahinta dowladda ayada ayaa mas'uul ka ah saad la socotaan abtidoon wuxuu ka mid ahaa raggii odayaasha ah ee wakaaladda soona waxaa la aasaasay 1964 51 sano ayay sanad guursatay waxaan rabaa inaan maanta halkan ka iclaamiyo ama ka sheego warbaahinta sidaad la socoteen raadiyaha iyo TV-ga shaqayn jiray waxaan ku soo darnay oo sanadkan qorshaha ku darnay wakaaladii wararka Soomaaliyeed soona inay shaqayso sidaa daraaddeed wakiilada halkan jooga shaqo dheeriya ayaan u dhiibaynaa haddii la yiraahdo si wakaaladii wararka ay u shaqaysana ayaga ayaa mas'uul halkan uga noqon doona qof kale oo xagga laga keenaya ma jiro nin walba meesha uu joogo asaa warkii codkii maqalkii wixii dhaasaa soo timi doona waana runtii arrin maartay aad u muhiim ah qorshaha sanadkan waxaan rabaa inaan 2-3 kelmo ka iraado annaga hadda saad la socotaan dowladda Finland waxay noogu deeqday qalabkaas oo runtii aad iyo aad muhiim u ah markaan xamar ka soo degay waxaan dekada xamar ka soo dejiyay container isugu jira kaamirooyin iyo qalabkii loogu talagalay TV-ga in 2 studio lagu maalgeliyo markaan soo baxayna 3 nin oo khubaro ah oo Finlandeys ah
waxay hadda joogaan muqdisho waxay dhisayaan tvga waxaan rajeynayaa tvga muqdisho awooddiisa ugu ballaaran waxay noqon doontaa runtii in xagga internetka aan awoodu helno ayadana shirkad kale oo waxaanu helnay culays fara badan aanu ku saarnay inay si naga caawiso internetka waa ogtayna muuqaalka laftigiisu wuxuu ku xiran yahay accesska internetka qorshaha kale xafiiskii london oo haddana warbixintiisa maaragtay aan qaatay waxaan rajeynayaa isaguna in qolooyinkii xiriirka aanan lahayn inay stuudiyahi noo hagaajiyaan dibna loogu soo tabin doono xafiiskaas dhinacii wararka iyo barnaamijyada ka bixi jiray ayadana waa qorshaha sanadkan qorshaha saddexaadna waxa weeye inaan gobolladii laftigoodii haddii alla yidhaahdo aanu xafiisyadoodii xoojinno saad la socotaan hadda waxaan soo maray Roma waxaan la soo kulmay safiirkii waxyaabahan ka codsaday waxay ahayd in halkaas xafiiskii annagu aan ku lahaan jirnay saad la socotaan safaaradda ayadaa mas-uul waddan kasta mas-uul uga ah waddanka waxaan ka codsanay inayna siiyaan xafiis waa naga aqbaleen waxaan rabaa sanadka dambe haddii alla yidhaahdo waxaa aad horta noo soo dhawey reer Sweden waxaan rajeynayaa xafladda dambe kolley dal ka mida dalalkan Scandinavian-ka ayaa lagu qaban doonaa waxaan rajeynayaa in sidii hadda maadaama aan degdeg ku imid taas way ka ballaaran doontaa waqti fiican baa lasoo sheegi doonaa waxaan rajeynayaa in wasiirku uu xafladdaas yimaado oo uu halkaan isagu yimaado aan isbedelno maadaama hadda aniga aan halkaan imid sanad dambena wasiirku haddii alla yidhaahdo uu halkaan yimaado aad iyo aad baan mar kale ugu mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden oo runtii si gaar ah ii soo dhaweysay shalay baan la qadeeyay xaflad waxaan kala qaadanay warbixin waa dad runtii midnimadooda ay aad u sareyso waxaan rajeynayaa haddii alla yidhaahdo dadkayga xamar jooga waddankii markaan ku noqdana warbixin fiican baan siin doonaa ayagana waxaan ka codsanayaa markay soo baxayaan inay telefoon noo soo diraan hadda ka bacdi baqi mayno ormayno walidilayaan waa soo dhaweynaynaa marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan rabaa inaan ku soo koobo gaar ahaan waxaan maaragtay runtii idinla qaybsanayaa hambaliyada Xudayfi oo runtii markaan soo safrayena aan u sheegay in halkaan aan kulanku ka dhici doono jaaliyadda markaan umidna runtii ay ii muujiyaan maaragtay inuu yahay nin wariye keliya maahane nin oday ah oo runtii wax isku xiraya oo qofka xataa si wanaagsan maaragtay wax ugu dhaadhicinaya wixii baahi jirana waxyaabaha kaloo runtii aan aad ugu faraxsanahay waxa weeye waasuga inaan arko sababta waxa weeye markaan halkaan waxay waasugu ma imaanaya haa bas intaasaa ugu filnayd runtii asaga nin odayoo barnaamijyada TV ka baxa doorka qaata uu ahaa inkastoona telefoon isku moodsin laakiin xiriirka xagga internetka ayaan aad u wada isticmaali jirnay waan rabaa in wasaaraddu ay ka muuqato odayaasha iyo dhalinyarada labaduba inay ka muuqdaan aad baan ugu faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xafladayadina caawa intaas ayay ku eg tahay oo loogu dabaaldegayay sanad guuradii telefishinka qaranka uu 4 jirsaday guud ahaanna uu 32 jirsaday shaqaalaha warbaahinta qaranka ee Yurub ku sugan intoodii ka soo gaari kartana ay halkan ku sugan yihiin caawa iyagoo ka kala yimid Norway, Netherland iyo Ingiriiska oo waliba Xudayfi uu u dhigay gogoshan quruxda badan ee caawa daawanayseen kaamiradan aad daalacanaysaan waxa soo diyaariyay ama duubaya sidaad u jeedaan Mustafa Qaan iyo waliba Maxamed Daahir ayaa daalacanaysaan kaamiradan aad u jeedaan farsamayaqaaniin kale tan way ku sugan yihiin dhamaantaya oo isu duuban waxaan leenahay hambalyo si gooniyana waxaan ugu hambalyeynaa shaqaalaha u dhabar adeegay ee iyagu ku sugan wadanka Soomaaliya baalihiisa oo dhan gaar ahaan reer Muqdisho ayaan si gooniya waxaan leenahay hambalyo geesiyaal ayaa tihiin anagoo isku duuban anigoo ku hadlaya codka wariyaasha telefishinka qarankana waxaan leenahay hambalyo meel walba shaqaaluhu ku sugan yihiin